Xagaha ayuu dhulka ugu gargaraacayaa si uu u khalkhal geliyo bahalkan ku soo socda. Looks like Waa haramcad diiranaantiisa u goodiyaya aar libaax, isagoo xagaha dhulka ugu garaacaya, rabana inuu waabiyo libaaxa. Xoog iyo xajmiba libaax ka badan haramcadka, halka libaaxa keliya ayaa u dhigma 3 haramcad, balse haramcadkani waa mid isagu u goodiyaya libaaxan. Waxaanu war u haynin bahalkan ku soo socda, mise khatarta uu wajahaya ayaanu ogeyn. Libaaxa iyo haramcadka waa laba xayawaan oo dugaag hilib ku nool ah, balse ku kala duwan dhanka itaalka, xeeladaha dagaalka iyo bahalnimada. Libaaxa waa xayawaan Ilaahay siiyey itaal iyo xajmi uu ku muquunin karo neefka uu ugaarsanayo. Libaaxa ayaa gurub ahaan wax u ugaarsada isagoo adeegsanaya itaalkiisa iyo xajmigiisa ayaa libaaxu awoodiisa wax ku muquuniyaa. Dhanka kale, dhinaca taagtikada iyo xeeladaha ugaarsiga, waxaa la sheegaa libaax in looga fiican yahay haramcadka. Ma laha awoodda iyo xajmiga libaaxu leeyahay, balse waa xariif xeeladyahan ku ah dhanka ugaarsiga. Haramcadku waa xayawaan aad u dheereeya oo sida la sheego saacadii jari kara 56 kiiloomitir. Xayawaankan orodka badan ayaa xawaarahan zaa'idka waxa uu u sahlaa inuu soo qabsado xayawaanaadka fudfudud. Libaaxa iyo haramcadka waa laba dugaag oo aanan halis isku ahayn. Labadan xayawaan sida caadiga ah iyagu isma ugaarsadaan oo khatar isku maaha, balse libaaxan waa mid isagu ugaarsanaya haramcadka isagoo gaadma raba inuu ku qabto, kadibna markuu qabto luqunta raba inuu jabiyo oo dilo. Libaaxii ayaa ku guuleystay inuu fursad ka helo haramcad 3 ah oo dagaalamaya, balse libaaxii u gaatamayay ayaa intuu ku soo dhacay 3dii haramcad mid ka mid ah luqunta jabiyay, isla markaana halkii ku dilay. he's grabbed him. He's holding him in such a position that now he needs to get the back. Libaaxan wuxuu u arkaa haramcadka xayawaan khatar ku ah oo keliya ma rabo inuu dilo, laakiin hilibkiisa xitaa ma cunayo, wuu ka tegayaa. Arrinkan ayaa cilmi baarayaasha ku takhasusay xayawaanaadka libaaxa iyo haramcadka ay sheegayaan inay tahay mid ugub ah oo aan libaaxa lagu aqoonin, sababtoo ah labadan xayawaan cadow isku maaha, mana is ugaarsadaan. Waxaadna ku arkaysaa marka uu haramcadkan uu qabto libaaxu uu dilo, hilibkiisa ma cunayo ee wuu ka tegayaa. Libaaxii weli wuxuu sii qoraansanayaa labadii haramcad ee baxsaday. Labadii haramcadna waxay la baxsadeen naftooda oo meel ay ku badbaadi karaan ayay kula carareen. Daawada fadlan haddaad muuqaalada xayawaanaadka la xiriira documentary aad xiiseynayso, ku soo biir channelkan lana wadaag asxaabtaada. Mahadsanid.